السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا برنامجكن maanta waxaan ugu hadli doonaa mid ka mid ah layaabka dunida oo ah maxaad ka taqaanaa magaalo dadka ku dhinta aan loo ogolayn in lagu aaso dhulkeeda. Magaalada Longyearbyen ee dalka Norway ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasay 2,000 oo qoys ayaa ah magaalo ku duwan magaalooyinka kale ee dalkaasi. waa jasiirad ku taala bartamaha dalka Norway oo qofkii ku xanuunsada uu ku qasban yahay inuu magaalada isaga baxo ama haddii uu ku dhinto aanan lagu aasi karin magaaladaas. Dadka nafqabadka ah ayaa loo diraa magaalooyinka kale ee Norway si ay ugu geeriyoodaan, waxaana jira sharci ah in haddii qofka uu ku dhinto aanay cidna xabaali karin. Sharcigan ayaa magaaladaas ka dhaqan galay in ka badan 80 sano ka hor, waxaana sanadkii 1918 albaabada la isugu dhuftay xabaalaha magaalada oo dhan. Intaa wixii ka dambeeyayna aan loo ogolayn in hal qof lagu aaso. Longyearbyen oo ah magaalo aad u qabow inteeda badanna ah baraf ayaa mararka qaar waxaa dhacda in qabowga uu gaaro wax ka hooseeya 50 darajo heerka biyuhu ku barafoobaan. maxay tahay sababta aan loogu aasin meydka? Sanadkii 1918 waxaa adduunka ka dilaacay hargab lagu magacaabi jiray Spanish flu, kaas oo ku dhacay dad lagu qiyaasay 500 milyan oo qof. meelaha uu ka dilaacay xanuunkaas waxaa ka mid ahayd magaalada Longyearbyen oo dad gaaraya 11 qof ay u dhinteen. dadkaasi oo lagu aasay isla magaaladaas hase yeeshee qabowga magaalada oo aad u daran ayaa waxay keentay in dadkii u geeriyooday xanuunka ee lagu aasay magaalada aanu jirkoodu baabi'in, taasi oo khubarada caafimaadka ay sheegeen inay jirto halis ah in xanuunka mar kale dadku ku qaadi karaan. dadkii u dhintay ee lagu aasay magaalada kaasi oo jirkoodu aanu burburin welina sidiisa yahay. Dr. Christy Duncan oo ka tirsan jaamacadda Windsor iyo koox uu hogaaminayo ayaa tagay magaalada si ay wax uga ogaadaan. waxay tijaabo ka soo qaadeen qof u dhintay xanuunka oo lagu aasay Longyearbyen, waxayna ogaadeen in weli xanuunku Spanish flu uu jirkiisa ku jiro. Christian Mayer oo sidoo kale ka tirsan jaamacadda sayniska iyo tiknoolajiyadda ee Norway ayaa hore u sharaxay sababta aan dadka loogu aasi karin magaaladaasi. sababta dhulka mar walba barafka ah aan lagu aasi karin ayaa waxay tahay in qofku marka uu dhinto halka laga rabay inuu jirkiisu baaba'o aanu sidiisa noqonayn, sida kalena barafka uu banaanka u soo saarayo meydka, ayuu yiri Christian Mayer. wuxuu sidoo kale sheegay in barafkaasi uu sii nooleyn karo cudurka uu qofku u dhintay, taasina ay keeni karto in dadka degan magaalada ay qaadi karaan xanuunka. haddii aad u malaynayso inaad dhimanayso, waxaa la sameyn dadaal walba oo lagugu geyn karo meel ka baxsan magaalada, ayuu sii raaciyay hadalkiisa. arrintan ayaa saraakiisha dowladda Norway ee magaalada Longyearbyen sheegeen in haddii la dhaqan gelin lahayn ay horseedi lahayd dhibaato caafimaad, waana taasi sababta keentay in ay yimaadaan qorshahan horseeday in dadka laga mamnuuco in lagu aaso magaalada. khubarada caafimaadka waxaa kale oo ay sheegeen in xanuunada ay u dhintaan dadka lagu aasay magaalada ay si sahlan ku faafi karaan. mas'uuliyiinta dowladda waxaa kale oo sheegeen in haddii dadku deegaanku ay taabtaan meydadkaas si sahlan ay ku qaadi karaan Spanish flu oo mar dunida u afeeyay. si la mid ah fayraska corona, xabaalaha magaalada Longyearbyen ayaa ah kuwa aanay dadku deegaankaasi ku tashanin. hargabka Spanish flu ayaa la aaminsan yahay in caalamku ka dilay in ka badan 50 milyan oo qof. intaas ayaan ku saafmaarayaa qodobkii ugu muhiimsanaa oo ah mid ka mid ah layaabka dunida, magaalo aan lagu aasi karin qofna. intaas ayaan ku saafmaarayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.